because nin lacag le nafta u baahan hortun isku sheegaa fiican nin lacag le nafta u baahan miya waa lacag ku dar waa shaqaysanaya ku kalo lacag lana waa guursanaya lacagteedu si ay u badato ku faqri hadaan guursado kisteedu dhaqaalaygu hoos u dhigaya السلام عليكم صاحبة قيمة بدن ميلول بعد الدنيا كجوتان والسلام يا وصاحبك نسامي أو إذا اللي إسكسون نقد ونفسن يو برنامج كلو حيسله برنامج كمان تا وأركتد تدوينها يسؤال أنا جان وضله سؤال شاز أو سؤال شو سؤال كفتنا هاي صوبته دمرك كدور بدان رجع العقد له أيوه العقد يلن كرو مسمحيتها صوبته أي وجعلهن إنه جورسدان رجل عقله. برنامج كاسوا برنامج كمانتا ياركتد تدوينها وأنا أركضنا دتك شعب كرير سيلي ياركتد هذا. أما سنتين أديان وحسب تاعنا جانل كسبسكرايب صار نو لايك جري نو شيء جري وكاغا ما تعلننا. Thank you. وهرين كسودو برنامج كسامي شو ياركتد تدوينها. اوكي ولكن ما سنتي برنامجكاada waa ku dhawahay waxa ka codsan lahaa Soomaalida dhan inay subscribe u saaraan wiilka shidar kaaliska arag waa ma santaa mar kale way qosol siisay barnaamijka maanta waa su'aal kaftana su'aashaas oo ah gabadha iyadoo shaqaysan karto oo hanti yeelan karto oo wax qabsan karto maxay tahay rabitaankeeda iyo hamigeeda uu u yahay inay guursato nin lacag leh because nin lacag le nafta u baahan hortun isku sheegaa fiican nin lacag le nafta u baahan miya horta mid koowaad talabaad naag inin hadii maanta la dhaho shaqo ninka xagga ninka ku fiican ma haantee waayo ninka waxa wuxuu ku siima ka hadlaa laakiin naagada shaqaysanaysa wiilka war faadinaysa lacag ku dar stress ay keenaysaa dhanka ninka u badin laa lacagta asaga suugeena faad guriga u fadhineena arag guriga loo fadhinaa miya lacagta qaadayna walaal salaam kale laakiin qofkaas waa isweyn kartaan فرينا دعي كرو وحول بعد دعي كرا دي من هذا فرين دعي الميسو كرسنا معها وأنا متكلم وقفنا هي قف كاز ودي من كرا حتى سمها هدود أنت دي من العكتي سبيلنا هنا العكتي هاي مركز هذه وحواي العكتي بنجي وكجرت أو صعطة سمها وحسب نفط وبان وكوشي ورا كوشي نفط وبان العقلان ستريس ومكتئب العقلان ستريس ومية ما صنت مركز لو عن كل كوسة برنامج كسامي شو ياركتي تدوينها وروا كده حن اللي سبسكرايب على صار ويلك جنبلك على تاع تشير تلايك واحدة Thank you. أنا ما صنت. كسر برنامج كسامي شو ياركتي تدوينها. أيوة دوه. وما صنتاي برنامج كسؤال شمان توحاول وسؤال كفتنا. سؤال شو حاوي قبل يضو شقي سنكرتو وهانتي يلنكرتو وهانتي سمين كرتو. محيط هاي ربيتان كذا يهمي كذا ويهاي إنه جورستون نين العقلة. لعق قدر. لعق شقي سنة ku kalo lacag lana waa guursanaya lacagteedu si ay u badato ku faqri hadaan guursado kisteedu dhaqaalaygu hoos u dhigaya ma fahantay marka lacag adduunka dhanba lacag loo ordaa waa lacag ku dar waa marka aad fikirkaaga waxa leedahay muxuu ahaa shilin ku dar waa shilin ku korsba caalamka dhan saasa ka socota lacag ku dar laakiin lacagtaada adiga waad heer noloshaada waa gaarsiin kartaa dabcan adoona qofna ku tashanin oona muxuu ahaay qofkan iyo shilinkiisa iyo jeebkiisa aan eegin waa sameyn kartaa waa ka kaaftaan kartaa qofkaas may hadaa ka kaaftoomo de waaba umaleynay laakiin laga kaaftoomo umaleynay laga kaaftoomo maxay ciidaba meeshii laga qaado way dhamaataa mugtahay si kasto lacag u leedahay hadii lacagtii la isticmaalo oo aan lagu shaqeynin waxa waaye laaziman lacagtaada ku shaqeysanay ma ana hadaa ku shaqeysto asagana wuxuu sameynaa ninkan wuxuu sameynaa ninka asagana wuxuu shaqeysanaa lacagtii meel kale u geynaa waa diiday marka hadaad waxaa rabtaa qofka ninkaas jeebkiisa iyo jeebkaada inaad isku darsato labadaba waa isku darsanaha maxaa yeelay ani meel kale ma geynayo mogtahay asaga laakiin gawaari kale oo raacaya ma fahantay marka gawaari kale intoo raaci lahaa lacagtii waxa dhan aniga leh waa maasantahay waan soo dhaweynaynaa barnaamijka aragtidaada saliimka ah iyo waxaan ku leenahay mar kale ku soo dhawo barnaamijka Sami Show iyo aragtida dadweynaha waa mahadsantahay thank you ugu horeen ku soo dhawo barnaamijka Sami Show iyo aragtida dadweynaha وادوها أبو. هذا ميكروفون كافكو دوينايو. وادوها. سؤال شمانتا وسؤال كفتنا. سؤال شاس أوه قبل يضع شقي سنكرتو حنتي سمين كرتو العق يلين كرتو محيطها همي جيدا يرجع ذا بأوتهاي إنه جورسوتن العقله.
waxay u tahay horta dumarku waxa waaye ma lahan quality saa u si badan haddii xataa shaqayso waa dumar mar un bay daalaysaa ilaahayna dee subxaana watacaala dumarka wuxuu u abuurayba inay guri fadhiisato ay awlaad dhasho sida ragga ma samayn karto adkaysi fara badan ma fahantay soo marka dumarku sidoodaba waxay nin lacag la u raadiyaan ninku ama lacag haysta ama yuusan haysan laakiin mar walba waxaa nin loo raadiyaa inay nolosheeda ku dhisato ma fahantay xataa hadday iyadu lacag haysato uma malaynaa inay ka maarmayso nin inay ka maarmayso qofka dumari dabcan mar walba waxaa leedahay qof garab ay u baahan tahay yes waayo waa qof dumar ah mar walba in la caawiyo u baahan tahay laakiin waxaa jira dumar badan oona ma garanaysaa muxuu ahaay fakarka adiga aad haysato aan haysanin balse aan aaminsanayn inay yihiin daciif oo waxay aaminsan yihiin inay wax walba qabsan karaan inay samayn karaan okay way samayn karaan oo gabdho badan oo maasha Allah adag baa jira oo shaqaysta oo maanta waxaan fadhinaaba maxaa dhihi jiray amaal haddaan ku tiisana gabadheeni maxaa magaceeda horta ii sheegtii fadhiday aqalka cad wadawska maraykanka gabadhii fadhiday ilhaan cumar yes sida gabadhaasoo kaleentaba dee meel darajo waa la gaari karaa laakiin mar walba waxa fiican darajadaada inay ku dheehnaato sharaf iyo wixii ilaahay kuugu talagalay inaana dhaafin baa mar walba fiican waayo si kastoo aad adag tahay nin raga oo qaar waxaa jira gabdho waxaa jira lacag bas raadiyo oo ninka aan rabin oo lacag bas doonayo taana interestiyaa la dhihi karaa lama dhihi karo mustaqbal gabadhu hadday lacag u raadiso interest bay raadinaysaa ma raadinayso mustaqbal gabdhaha baryahan waxay u bateen interestigaas waa interest mustaqbal sug guurka waxaad ka garanaysaa gabdhaha furiinka uu ku batay gabdhaha maanta Soomaaliyeed 100% waa wada single mother waa aragtay sama waxa ugu wacan interestiga joobka ninka ay fiirinayaan oo marka hore intii lacag ku aroosaan markii lacagtu dhamaatana ay dhahayaan anna waan dhamaaday hadda maxay ka macaasheen ayaga iyo awlaadna waa lagaga dhaqaaqay waad artay ayadii maanta awlaad la haysto ma fahanteen marka gabdhaha Soomaalida waxaan kula talin lahaa in inta Ilaahay ka cabsadaan oo wixii loogu talagalay ee dumarnimadooda ay fiiriyaan ninka rabo oo daacad u ah inay ku dhagaan awlaad la kursadaan ani taasan kula talin lahaa gabdhaha Soomaalida waa soo dhaweynaya furiinka tumaaj noqday exactly waa soo dhaweynaya fikirkaaga saliimka mar kalena waxaan ku leeyahay ku soo dhawow barnaamijka Sami Show iyo aragtida dadweynaha waa ku dhaweeyo aad ma santahay ugu horeen ku soo dhawow barnaamijka Sami Show iyo aragtida dadweynaha waa ma santahay walaal waan ku dhawahay adigoo mikrofoonka af ku dhaweynayo su'aal maanta waxaa wadnay oo kaftan ah su'aashaas oo ah dumarka ayagoo shaqaysan karaan oo lacag samayn karaan oo lacag yeelan karaan maxay tahay sababta ay gabadha hamigeeda iyo riyadeedaba iyo rabitaankeeda uu yahay inay guursato nin lacag leh marka hore waa mahadsantihiin aad baan idinku mahadcelinayaa dhalinyarada Sami Show marka xigta su'aashaada horta waa su'aal wanaagsan ka fikrad ahaan haddii aan ka hadlo horta bini'aadanka isku fikrad ma noqon karo laakiin ani shakhsi ahaantayda codkaaga aad kor u yar qaada ani shakhsi ahaantayda horta inay gabadhu ku fikirto nolosheeda oo dhan lacag lama aha because gabadhu iyadu business way samaysan kartaa way shaqaysan kartaa laakiin noloshu dhabta ah sideeda banaan lacag kuma xirna waxa muhiimada ah inaad heshid qof nolosha kula joogi kara oo jacaylna ku haya qof ku fahmi kara marka waxaan dhihi lahaa dadka dhahaya nolosheen waxaan ku xiraynaa lacag soo lacagtu waa dhamaataa laakiin jacaylku ma dhamaado waxaan dhihi lahaa dhalinyarada wiilal iyo gabdhoba ku jira waxaan dhihi noloshiina ha ku xirina lacag ku xira si aad u heshaan qof idin fahmi karo oo jacaylna idin siin kara exactly marka fikirkaaga jacayl inaad heshid qof ku jecel fikirkaaga waxa waaye muhiimadda qofku jecel oo ku fahmaayo inaad hesho shaqada ceeb ma aha gabadhu way shaqaysan kartaa ninku wuu shaqaysan karaa laakiin haddaad tiraahdo anigu waan shaqaysanayaa waxaan rabaa nin lacag leh kolay fikrad fiican ma aha waxaan lahaa adoo shaqaysanaya raaso qof nolosha kula fahmi kara waan soo dhaweynaynaa fikirkaaga saliimka ah waxaan ku leenahay mar kalena barnaamijka Sami Show iyo aragtida dadweynaha ku soo dhawow thank you walaalkii ku soo dhawow barnaamijka Sami Show iyo aragtida dadweynaha dhawaabo waa maasan tahay barnaamijka maanta waa su'aal kaftan ah
su-aashana waxaa weeye dumarka Soomaalida maxay tahay sababta ay ugu duceystaan inay helaan rag lacag leh oo rabitaankoodana uu yahay inay helaan rag lacag leh ayagoo samayn karaan oo na shaqaysan karta gabadha lacag samayn karto maxay tahay sababta ay ugu duceystaan ragga lacagta leh السلام عليكم دا ku bilaabo jawaabta su'aashaas sababta aan kulay waxa dhihi karaa gabadha ma aragtay maxay ahaydey waxa u maleynayaa inay lacagta ayada ay soo gelin karto ay shaqeyn karto xitaa ayadoo shaqaysanayso lacagta ay soo gelin karto wali ayadoo shaqaysanayso naag lacag leh ay tahay wali hamigeeda waxa waa in lacag leh midaas oo ugu wacan ma ogaan karnaa markaa sababta iyadoo lacag leh gabadha oo shaqaysatay sababta haddana hamigeedu uu yahay nin lacag leh waxa waaye gabadha markay shaqaysanayso waxay ku fikiraysaa dabcan sida familkeeda iyo ayada nafsadeeda siba ha u badataa familkeeda inay ku maareyso laakiin mid ninka lacagta shaqadiisa lacagtiisa ah waxay rabtaa awlaadeedii iyo ayada inay isku maareyso oo ayadu ku filan yahay marka iyada waxay shaqayso waxa leedahay waxay ku maareynaysaa familkeeda familkeeda sidaas ninkana lacagtiisana waxa lagu maareynayaa ayada gurigeeda marka hadda adiga saas aaminsan tahay ninka nin lacag leh dabc qasam ma inay nin lacag leh ay raadiso gabdhaha dhan isku mid ma ahan laakiin mid ninka lacag leh raadinayso inta ugu badan rabitaankooda caasumaha rabitaankooda waxa waaye inuu ayada ay cideeda ay u baahanin uu ayada maareynayo ayada yani uu ku filnaanayo lacala hada ilmo dhashan yani cideeda ay u baahanin ay yani nolol raaxo leh oo qurux badan ayadii awlaadeeda ay ku noolaato ay cideeda u baahanin midaas waxa ninka lacagta leh u raadinayso marka waa maasan tahay mar kale waxaan ku leeyahay ku soo dhawow barnaamijka Sami Show iyo aragtida dadweynaha ma sha Allah thank you ku soo dhawow barnaamijka Sami Show iyo aragtida dadweynaha waa maasan tahay barnaamijka maanta waa su'aal kaftan ah su'aashaas oo ah dumarka ayay qusaysaa dumarka ayagoo shaqaysan karaan oo lacag yeelan karaan oo hanti samayn karaan maxay tahay sababta ay u door bidaan ragga lacagta leh ayagoo naftooda kaafin kara maxay tahay rabitaankooda ee mar waliba ugu duceystaan inay helaan rag lacag leh taas waxa dhihi lahaay it's a sign of laziness it's a sign of laziness yeah never rely on a human being qofkaas lacala waa laga yaabaa inuu ka tago lacagtu way dhamaanay sax marka waxa leedahay maxaa leedahay shaqaysan kartiina dhihi lahaay shaqaysan leedahay shaqaysan waa maasanta mar kale waxaan ku leeyahay ku soo dhawow barnaamijka Sami Show waa dhawaad booy ma sanad ku soo dhawow barnaamijka Sami Show waa ku dhawaad walaal barnaamijka maanta waxa weeye aragtida dadweynaha su'aashana waa su'aal kaftana su'aasha waxa weeye dumarka Soomaalida maxay u jecel yihiin inay guursadaan ragga lacagta leh oo alla mar walba ay ugu baryaan inay helaan rag lacag leh ayagoo samayn karaan lacag la su'aasha saddex ku dayo waxay isdhahan nolol wacan ku noolo nolol wacan ku noolo okay dabcan gabadha haddii iyada ay shaqaysato oo muxuu ahaay cagahayda isku istaagto soo nolol wanaagsan kuma noolaan karto nolol wanaagsan ay ku noolaan kartaa laakiin waxay isleedahay doorbidaysaa marka inay hesho nin lacag leh wallahi lugaheeda inuu ku istaagtay lacag shaqayso wax badan ama ku qaadanaysaa ragga lacagta la naamay markaas ayadoo dhib la'aan helaysa Soomaha isagoo dhib la'aan ku helaysaa laakiin qofka dhib la'aanta ku heshiiso biri ka maalin qof binaadam waaye waa ka tagi karaa si buu noqon karaa suma wallahi waa ka tagi karaa sax soo adiga ma wanaagsan inaad ma garanaysaa marka meel iska saarto way wanaagsantahay marka uu ka taga meel iska saaray ay waa maasan tahay mar kale waxaan ku leenahay barnaamijka Sami Show ku soo dhawow shukran ugu horreyn ku soo dhawaa barnaamijka Sami Show iyo aragtida dadweynaha su'aasha maanta aan wadno waxa weeye dumarka ayagoo lacag samayn karaan maxay tahay sababta ay ugu duceystaan inay helaan rag lacag leh والله أنا رأيي هذا كنت جبت شخصي جاها فكرة أنا أركاه وحوي فكرة غلط أصلاً بقى لأنه بني آدم كقف كحوق جرسة دين تيسي أخلاق ليسا لعك قف كستوصو بنكرة لعكت أنا أتجرني إن مصدر كي ما حلالة ما حرانة مركب وكسو رجال أصلاً إن فكرة ده بكون فكرة نينكاز للربو أو لعكت له مركب فكرة ده صدق وحلي ده هيوا
فكرة غلط واي فكرة غلط لعقت قف كستو صوبين كرا قف كان عدل هذا العقل إلهي إن العقل السينة مصدر كوكين ما بقرن يسيد محلالا محارانا مرك أهم شيء وحوا إن الفيريو نقف كان دينتيسي أخلاق ديسا أوكي لأنه هذا واحد أرجني العقل عكسي له دب أرداي المبادرة ضيعان حقوق بدنا ولا ضيعي فتاسع كانت سبب تفكير كهر قلت كها باكيني دبعتنا هذا إمادة مرك أوكي هذا طبعا وحليدا هاي فكر كاز دمرك ويكون قلدين على هذا قلدين كتير أنه وحن كرجينا هنا إسكب الدلام أصلا فكرة دسبة فكر أهني بالدلام موضوع موضوع عدلنا كبحان إنك بحانها هم أصلاً مركل وعم كلية برنامج كسامي شو كسودو يا ركتي تدوين كسودو برنامج كسامي شو يا ركتي تدوينها ما أصلاً هوا سؤال شمان توا سؤال كفتنا قبدا يضو شقيسن كرتو العق يلن كرتو حنتي يلن كرتو محيطاي صوبتا u jeceshahay inay guursato ee mustaqbal la wadaagto nin lacag leh waa maxsan tahay noo ku dhawaad barnaamijka saamisho waan soo dhaweynayaa hadan su'aashaada kaaga jawaabo gabadhu markay soo kacayso ee xasaabadoon tahay waa maray wax baratay ama wax barasho ku jirto markay wax barasho ku jirto de ma shaqaynaysa maaha gabadhu waxay doonaysaa qof shoppingkeeda iyo ayadu kafaal qaadi kara mid asaga uniformka gurigooda looga soo xiray canjeerada la siiriyo xagu geynayaa marka qof markay wax baranaysana de garab qaban kara hadhow marka shaqaynaysana labadooda iskaabi karaan baa la rabaa mid qanax asaga tiisa u yaaban dacwad wax falaysaa ma jirto marka waxa leedahay mid qanax lama rabo ها ميد قف محتري كلا لا روا وما صندا مركله waxaan ku leeyahay barnaamijka Saami Show ku soo dhaweey aragtida dadweynaha fakarkaaga Saliim kaan waan soo dhaweynaa ku soo dhaweey barnaamijka Saami Show iyo aragtida dadweynaha waan dhawahay wala waa maasan tahay barnaamijka maanta waxa weeye su'aal kaftan ah gabadha ayadoo hanti sameyn karto lacag yeelan karto shaqaysan karto maxay tahay waxa hamigeeda iyo rajadeeda iyo riyadeedaba ay u tahay inay guursato nin lacag leh bismillaah sababta ay tahan ku sheegaya anagu daleeyuma talagalin shaqeeyo marka horeba qof dumaranahay ma lagu talagalin bo inaan carruurta koriya lagu talagalay yaa ku dhahay ma lagu talagalin waxa lagu talagalay ilaahay bay ma banaan ayad quraan baa ma banaan dibadda oo soo baxo haye marka inaan gurigeyga ku filaado carruurta daryeelo xaafadda ka sii shaqeeyo isna uu soo shaqeeyo sida laajigeed baa igu marka hore wada lagu talagalay maxaa waa gart tawhay marka waxa rabtaa waxa leedahay muxuu ahaay waxaan leeyahay raguna ha soo shaqeeyaan dumarkuna guryahooda ha joogaan oo carruuraha hayaan marka raggu booska ilaahayeen inay dumarka u diraan ay dhahdaan dumarku inay soo shaqeeyaan lacag sameeyaan oo aanay nin lacag la raadsanin ma hadda taasi mas'aashaas mid meesha ku jirta ma maxaa la is weydiinayaa su'aasha meesha ku jirta su'aasha gabadha markayba soo kacdabo xilliga ay joogto rag laha saabida su'aasha macnaha fahan carruurta ma haynayaan raggu marka anaguna soo shaqeynay gabadha fahan doorta iga jawaaniga carruurta ma haynayaa ninku booskii gabadha ma sii galaya guriga ma ka sii shaqeynaa ma ka sii adeegaya adiga buu ogtahay inuu gali karin ninka inaanu gali karin qofka dumar ah oo maxaa marka sababtan anigu u gali karaa waa maxay booska ninka markaa soo shaqeyn karaa su'aasha fahan gabadha xilliga hasaabaha markay joogto ayaan wali ka hadlayaa aniga haye ee ragga shukaansanayso haye ragga waxay ku xulanaysaa nin lacag leh haye inay guursato haye marka hadda ma yaalaan wax ilma ah haye waka haye taana haddaan kaaga jawaabo gabadhu markay soo kordhayso ay waa maray wax baranayso maray xaafadda joogto de business ay yacni wax ku samayso oo ay ku shaqayso meel wax kaga soo saartaa ma yaalo isku markaa de yacni waxaan taana aan adii weydiinaynin de gurigooda lacag kama soo qaadanaysa gabadha gurigooda nin ka soo kaxaysanaya maaha marka gurigooda lacag ma taala laga soo siinaya dabcan way ya dabcan laakiin gabadhu way shaqaysan kartaa horta iyadoo shaqaysan kartaa oo iminka 90% hooyooyinku shaqeeyaan habluhu shaqeeyaan oo dumarku ay shaqeynayaan haddana waxaan kuu sheegayaa booskii raggu lahaa inaanu markaana ku jirno haddaan hooyooyinka nahay iyo haddaan gabdhaha yar nahay okay waa maasanta mar kale waxaan ku leeyahay barnaamijka Saami Show aragtida dadweynaha ku soo dhawo fakarkaaga Saliimkaana waan soo dhaweynayaa haye shukran wad maadsantahay saaxiibada qiimaha badan oo barnaamijkeena caawo halkaas ayaan ku soo afmeeraynaa intaan barnaamij xigo aan ku kulmi doono waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo inkastoo maanta barnaamijka maanta uu de xiisa gaara uu lahaa oo haddana dadkii barnaamijka ka qayb qaatay iyo inta aan ka qayb qaadaninba muxuu ahaay hadalhayn badan uu dhaliyay haddana waxaan leeyahay soo dhawaada mar kale